أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. salaanka bacdi waxaan ka hadlayaa xaaladaha iyo dhibaatooyinka ka socda magaalada Laascaanood. intii ku dhimatay waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariis janno. intii dhaawacantayna ilaahay waxaan ka baryaa inuu u sahlo amuurahooda oo ilaahay caafimaad ugu bedelo dhaawacyada iyo dhibaatooyinka. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay ka dulqaado culayska saaran reer Laascaanood iyo ciidamada garaacaya habeen iyo maalin madaafiicda la dul fadhiya. mashaakilka halkaa ka dhacay iyo dhibaatooyinka iyo dilalka ka dhacay maxay ahaydee dhan kastaba ha noqotee mas-uuliyadda waxaa qaadaya maamulka Somaliland. waayo sababtu tahay markii hore bay ahayd intaan dhibaatooyinka intaa laga dhicin inuu ciidamada dib uga celiyo meesha. in ciidamada looga celiyo dil waxa lagama helo, lagama faa'iido iyo dhibaatooyin way sii bataan. cadownimadii baa sii badanaysa iyo dilka iyo dagaalka. xaaladaha halkay marayaan iminka waynu aragnaa. in leeyahay Hargeysa dadka lagu leenayo, meel kasta lagu leenayo, dadka gawaarida lagala digaya. waxaas dhibaato waxa qaadaya mas-uuliyaddeeda muuse bixiyo wixii la shaqeeyay. mid kalena way jirtaa haddii madaxweynaha meesha saaran uu yahay ama kuwa la shaqeeya iyo isaguba ay yihiin dad khaldan oo dadka Soomaaliyeed u bilaabay dil iyo dagaal iyo dhibaato iyo qabyaalad iyo qurun. waxa jira maxay ahaydey baarlaman baa meesha lahayd. waxaa jira salaadiin, waxaa jira caaqilo, waxaa jira wadaado. maxaa looga qaban layahay dhibka kan uu ku hayo magaalada Laascaanood? culayskan saaran 10 maalmood hubka lagu garaacayo dadkaas islaameed wax nooc walbaba leh. maxaa wax looga qaban layahay? xildhibaanada meesha dadka uu saaran yahay madaxweynaha uu yahay xildhibaanada ay ugu horeeyaan wax kale haddaan qaban karin waxa jirto ay qaban karaan xilka in laga xayuubiyo. xilka in laga xayuubiyo way talaabada ugu wanaagsan ay qaadi karaan haddii ay yihiin dad daacada oo aanay dhibaatada ka socota meesha ku raacsanayn. haddii ay leeyihiin kuwa dhacnona gooshinna kama keeni karno, waxna kama keeni karnana ila mas-uulka khaldama xilka laga qaada dan wax kale laga qaban karay. dhibaatada inay tahay dhibaato taagan oo ay tahay dhibaato saameyn weyn ku leh dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan aan ahayn wax sahal ah. haddii aanay wax ka qaban karayn oo ay leeyihiin xilkana kama qaadi karo, waxna talaabana ma qaadi karo, dadweynaha Soomaaliyeed ha u sheegeen oo waa ku raacsanna ha yiraahdeen dadka Soomaaliyeed ha caddeeyo. haddii ay leeyihiin saasaan kula shaqeynaa raalli kaga nahayna ha sheegeen ha caddeeyeen warka. laakiin dhibaatada tan ka socota waa dhibaato aad iyo aad u xun. magaalo maalin walba sida loo garaacayo dul taagan yahay dhibaatadeeda ay leedahay. dadkan dhalinyarada dagaalka geliyeyna dad baa dhalay, dadkii dhalay maxay hadli waayeen intay ooyeen marka maxay lasoo laayo maxay u hadli laayihiin oo u duba qaban laayihiin ciyaalka dhalinyarada ayuuna waay muuse ciidanka ka soo saar meesha noo soo saar dhalinyarada meesha naga leeyna noo soo celi. wax hadlaya ma aragnayno. waxaan jabaya mooyaane wax hadlaya wanaag ku hadlaya ama maslaxadda ka shaqeynaya ama dan ka shaqeynayo
danta dhalinyarada Soomaaliyeed meesha ku dhamaanaysa ma aragno ruuxantii dantuna waxay tahay ciidanka in meesha dib looga qaado dadka magaalooyinka hadayna dhulkayga noo daayay ku dagaalamaya tiin looga baxo dadka aan la isku dilin in laga baxo wax xukun la yiraahdo ma jiraan meesha xukun ay ciidan aqoonsanaya isagoo iskiisu magacaabay awal baaha marka maxay hayday xukun la duminayaan ba jirin nidaam dadku isku maamulayaan buu nidaamkan hadii la isku afgaran waayo lagu kala tagay timaha in xabad la soo qaado la isku maqooniyo dhibaato aad iyo aad u xun baa ka socota meesha carruur yaryar baa ku dhimanaya habeenii maalin aan arkayna guryaha lagu xasuuqayo maxay hayday dhalinyarada isku dhamaanaysana dadka waaweyn soo diray tallaabo ka qaado meesha ka qabto sidaa kuma socon karto arrintu tallaabo weyn laga qaado dhalinyaradaas intaan isku dhamaanin intii hadhay la daba qabto dadkan dhalay haw kaceen waxaa odayada taxanka fadhiya kuraastooda dhanka leeyihiin danka male carruurna danka male dhalinyarana danka male cidna ka nixmaaya waxaanu leenahay dadkii dhalay dadkan qabsada oo dadkan islaamid ka dulqaada culayska oo guryahoodii jooga waxaan ilaahay uga baryaa dadkan ilaahay inuu hadeeyo oo xaqa tuso waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada baan leeyahay maamulka Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahay ka baqa maamulka markaan leeyahay ma soo bixi kaliya ma war inta la shaqeyso iyo xildhibaanadu tallaabo wayna qaadaan ilaahay ka cabsada oo arrinkan arrin ku bedela waan leeyahay maxay hayday intaasaan kusoo koobaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax dagaalka gelinaya waxaan aragnay buur madow waxaan leenahay ku mahadsantahay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay adigu weliba horaad hadashay dagaalkaas aan bilaabin laakiin dhegna waan loo dhigin qolyaha kalena waxaan leeyahay dhalinyaradiina kala baxa meesha kala baxa dhalinyarada haweeney maalin xabadda hortaagan maxay hayday oo dagaalka la geliyey intaan idinka ka dhamaan kala baxa baan leeyahay wax dagaalkan laga faa'iideeyo ma jirto aan khasaare ahayn qolyaha reer Boorama waa la hadlaya waxaan leeyahay dhalinyaradiina kala baxa wax haddana idinku jirtaa ma jirto in dhalinyaradiina dabka lagu shubo haka faa'iidi baysaan aan khasaare ahayn dadka waxaan leeyahay dhalinyaradaas dadkii dhalay ha loo cesho dadka ay dhibaateynayaan laga kor qaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu